xogsanayna banalkaas oo ay ka qayb galayaan dhalinyaro iyo khubaro waxa weeyaan dhanka tiknoolajiyada aad ugu xeel dheer arabna inaan ka faa'iideysano caawa wixii su'aalaana markuu banal ku dhamaado aad dib ka weydiin doontaan hadda waxa uu yeeray mar labaad injineer Siyaad Ali Yuusuf wariye Maxamed Saalax gudoomiyaha dalada dhalinyarada Bayaan Ibrahim Liibaan Maxamed Xuseen iyo injineer Xamdi Cabdul Qaadir si ay nagala qayb qaataan banalkeena su'aasha ugu horeysa hadaan ku bilaabo waa maxay caqabadaha dhalinyaradu kala kulmaan adeegsiga tiknoolajiyada waxay la qabaan caqabada bulshadu kala kulanto si guud faa'iidooyin badan oo ma garanaysaa laga helo isticmaalka digitalka ama tiknoolajiyada way jiraan caqabado badan oo laga kulmana way jiraan ka Soomaali ahaan hadaan dhahana anu waxaan dhihi karaa caqabadaha aan kala kulanaa aad u badan tusaale ahaan waxa jirta caqabada ama waxyaabo dhibaatooyin adigu sabab u tahay inay kaaga yimaadaan iyo kuwa bulshada sabab u noqoto inay kaaga timaado tusaale ahaan in xogtaada khaaska oo kale ama laga xado ama waxyaabo aadan raali ka ahayn oo kale in lagaaga soo baahiyo baa dhacda sidoo kale waxa dhacda in hate speech ama magaranaysa waxyaabo xunxun oo kale ay kaaga yimaadaan oo dad aan access ku heli jirin markii hore in ay magaranaysa ay awood u yeeshaan inay ku soo gaari karaan oo wax ku dhihi karaan taasoo marka qaar kood waxa dhici karta xataa dhaqankaaga in lagaaga bedeli karo oo markii aad ama ra'yi ama si wax saxan oo kale saa u aragtid oo kale hada bulshada la wadaagtid in macnaha negative-ka kaaga imaanay banaanka ay keento in hadhow adigii wixii aaminsanayd laga dhaqo oo dhan xun lagu hogaamiyo caqabado aad buu badan yihiin ma soo koobi karno marka intaasan ka sheegi karaa inta kalena banalka intiisa dhiman waxay ku dari karaan dabcan way jirayaan haddii aan su'aashaada u yimaado caqabado oo sida bulshaduba ay ula kulmayso baa ula kulmayna laakiinse waxa laga yaabaa in badan ay faa'iido ama ay u tahay qofka haddii uu anshaxa iyo akhlaaqiyadka iyo aadaabta laga rabo uu isagu qofka ama aadaab ahaan uu caadi u dhisan yahay ama aadaabta laga rabo uu raaco markaas waxa imanaysa in uu sida ugu wanaagsan ka faa'iideysto laakiin oo caqabadihii iyo dhibaatooyinka ka imanayay markaas way yaraanayaan laakiin haddii qofku marka bulshadeennuna marka ay akhlaaq ahaan hooseyso iyadoo aan dadku dhalinyarada ama bulshada isticmaalaysa qofkii aanu markii hore aadaabtii dhaqankii iyo tii diinta iyo wixii oo dhan aanu si fiican ugu soo barbaarin haddii uu soo galo socialkii de waa halkii haddii aadan xishoonay waxaa doonta samee ay la odhan jiray marka waxa qofka markaas xadidaya oo ka xadidaya waa sida uu aadaabta iyo akhlaaqiyadkaasi uu isagu marka hore uga dhisan yahay laakiin markasta caqabad way jiraan wax ka xoog badan weeye iskama qaban kartid adduunka dhan ayaa isu furan oo mid kastaba kulli backgroundkooda wuxuu doonayaa inuu adduunka dhan qariyo waaxida ka dhigo waana ka dhigan dabcan sida reelka oo inagu halkan joogna baan dhammaanteen waxaan ku jirnaa ceelkii Morocco ee wiilka yar Rayaan ku dhacay baan dhammaanteen ku dhex jirnaa sababtuna waxa weeye waxay lahayn wakaana العالم كله هذه الحفرة bay hadda maamaadaas hadda soo korodhay waa sidii in caalamku dhan ku jiro halka sababtuna waxa weeye socialka iyo media oo live halkii baa ilmi kaamira loo geeyay markaas halkii adigii la dareen noqonaysa hooyooyinku loo ooyeen marka iskama xadidi kartid taas hadaan iska xadidi karin marka caqabad badan way keenayaan oo qofkii waxay u dhaawacayaan adigii dareen ahaan waxa laga yaabaa wax badan oo kula xumaan jiray markii aadan social media isticmaalay inayna kula xumaan oo ay si caadi ku noqdaan oo xishoodkii uu yaraado oo laga yaabo in TikTok-ga oo kale marka tusaale u soo qaato bulshadeenu waxay ka arkeen markii ugu horeysay asalkiisina uu ka yimi dance marka asalkii sidii loogu arkay isla sidii baa inuu kala qabsanaynaa problemka iyo dhibaatooyinka Soomaalida marka adduunka kale loo fiirino adduunka kale iyagoo dhaqankoodii waxooday haystabay isticmaalaan wax kale laakiin anagu waxaan isku dayeynaa waxaasi siduu yahay inaan sida loogu jiro inaan ugu galno taasna waa dhibaato haddii iyadoo bahalkan wuxuu inoo yimi iyadoo la dance gareynayo isla dancing baa la dhex galnay hadda dadku hadii qofku wacdi la soo gal xulugana meeshan isruux baa loogu yimaadaaniyo aniga waxaan kamid ahay dadka 2002ga hadda ku biiray sababtuna ay keentay markii uu asara u soo kacayo Facebook la mid noqday markii hore ma jeclay
marka nuxurku wuxuu yahay dadku akhlaaqiyaadka marka hore bulsho ahaan iyo dhalinyar ahaan iyo dhammaanteenba aan xoojino kadib waxaa imanaysa in caqabaadka iyo sucubaadkan uu wato aan iska caabin karno qodobka muhiimkana wuxuu yahay inaan inagoo dhaqankeena iyo diinteena haysano waa isticmaali kartaa kan caawa la soo baxo waa isticmaali kartaa sababtoo ah faa'iidu leeyahay laakiinse haddii siduu kuule isagoo qofkii isticmaalaya haddii uu maalintii koowaad isagoo qaawan soo galay ayna qaawanaantii ku galno dee ka daroo dhidibidhal bay noqonaysaa marka dabcan qodobada kale baan dib uga hadli doonaa hadda intaasaan jeclayna kusoo kabo anigu asal ahaan markaan waxaan hoos usii fiirisid asal waxaa ka ah waa ogaalkeenna yar teknolojiyada iyo meesha ka timi waxay tahay waxa qofkan uu samaynayo raadka ay yeelanayso ay reebayso maaragtay waxaasoo dhan baa meesha ka maqan marka dhinaca aqoonta yani anuu is leeyahay in xoog la saaro sida barnaamijkan oo kale hadda waa muhiim wey in insaas loo badiyo oo la yiraahdo war waxaanu ma hadda ma jiro qof yeelaya gabar hadda intaan niraahno halkaas xoogaa shan inta shaacban kale no xoogaa nabada daali ya macni dagaal iyo wixii ka xigtaa moogtahay ama maaragtay iyo bahalkii laakiin haddana waxaa dhici karta inay iyadoo lip synchronization kaas ama systemadaas la diyaariyay just bahal yar inta iska daarato ay saayadoo le ay markaa caalamkoodna u dirto marka taa waxaa keenaysaa weysan ogaalkii baa ka maqan yani waa iska laablakac ama qofkii moogtay waxaan keli baa la tahay waxaan dhibaatada uu leeyahay waxa way TV-ga markii hore laga qeylin jiray TV-ga de meel baa lagu wada daawan jiray moogtahay wixii wuxuu lahaa waxyaala kaa joojinaya ama aan macquula dadkii oo dhan baa kula jooga xilli gaara uu socdaa waa dhammaaday laakiin wuu iska socdaa marka kelinimadaas qofku uu la kaleysanayo iyo ogaal la'aantaas ayaa waxay keenaysaa in qofkii uu marka waxyaalo badan oo aan munaasab ahayn uu isticmaalo marka ogaalkaas in la badiyo iyo aqoonta oo dhinaca positive-ka oo teknolojiyada ayaa muhiim ah saasaan intaasaan soo koobaya assalaamu calaykum dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo Somali Innovation Hub iyo walaalaha naga qaybgalaya panelka engineer Siyaad engineer Xamdi iyo Maxamed Saalax iyo Maymuun ma ku faraxsanahay kulankan ka soo qaybgalo waa caqabad ballaaran oo jirta oo u baahan dhanka caqabada iyo faa'iido dhanka in laga faa'iideysto u baahan caqabadeedana la yareeyo teknolojiyadu media wuxuu ku hayaa social media culays badan buu dhalinyarada ku hayaa sin wada ognahay adduunka waxaa ugu qaalisan waqtiga iyo nafta kuwa wax duubaya oo meel ka dhacay way jiraan naftooda waaye kuwa iyagu wax duubaya mobilka laga qaado la dilay baa jira sidoo kale waxaa marka nafta laga tago waxaa labaad ugu qaalisan waa waqtiga qofku inuu noolaado oo waqtigiisana ka faa'iideysto iyadana waxaad moodaa waqtigii inuu lumay oo waqti badan uu lumiyey marka saddexaad waxaan karaa caqabadaha ka dhashay waxaa ka mid ah in dhaqankii lumay oo maanta qofku uu dabagalay heestii China dhaqankii Hindiya iyo ummado kale aynu si diib ahayn diintiina uu saameyn ku yeeshay nafsadiisii qofka waxaad moodaa waxbarashadii inay ku luntay oo dhalinyaradii ay waxbarashadii ka hareen markii ay habeenkii saamay leelaan oo ay ku dhafraan subaxii waxbarashadii inay kalaaska ku dhex seexdaan sidoo kale waxaa dhacday fasalada dhexdooda inay moobiladii ku isticmaalaan oo caqabada ugu weyn iyo wax ugu weyn hadda waxbarashada marka laga hadlayo waxay noqotay moobilkii dhib weyn buu dadkii ku hayaa sidoo kale wuxuu ku hayaa dhaqaale burbur badan buu dadka ku hayaa waalidiintii iyo dhammaan intii magaciisiga ahayd qof kasta maanta wuxuu ku weydiinaya waxa ugu qaalisan waa prepare qofku waxa ku xiga uu ku weydiinaya waa moobil marka dhaqaalihiina saameyn buu ku yeeshay waqtigii saameyn buu ku yeeshay naftii saameyn buu ku yeeshay dhaqankii saameyn buu ku yeeshay diintii saameyn buu ku yeeshay qofka isagoo halkaa fadhiya in salaadii dhaafto soo u dhafrayo in waqtigu magaciisi gareeyo aabbahay aan muddo isticmaali jirin baan telefoon u iibiyey wuxuu yidhi habeen baan saa u fiiriyey saan u fiirfiiriyey u daadaawanayay waxaan arkay anoo xilli dambe gaaray oo xilligaan salaatuleelka tukan lahaa baan sir iyo saas habeenka ay ku dhaaf idhaafiyo hadda marka wuxuu ku neceb yahay waa moobilka marka isagana waxaan ugu talagalay inuu uga faa'iideysto ku hadalka iyo waxyaabaha xiriirka oo ku magaciisi garay laakiin caqabad bay waxay ku noqotay xilligiisii cibaadadiisii waqtiga ku noqday marka inta ka yaryarna waxaad moodaa caqabad ka sii weyn inuu ku hayo aad baad mahadsantahay sidee looga faa'iideysan karaa teknolojiyada iyadoo la ilaalinayo sugnaanta anshaxa midda kalena waxa weeyaan sidee loo ilaalin karaa amniga ama xogta qofka isticmaalaya xogtiisa ma la ilaalin karaa
waxaan dhihi karaa maadaama marka aadan tiknoolajiyadda ku jirin sida ay tahay inaad u dhaqantid oo anshaxa u ilaalisid oo u ilaalisid inaad dembi ku dhacdid inaad qof caydid in aad marka aad tiknoolajiyadda isticmaalaysana in aad saas oo kale aad u dhaqantid oo ah waxa hadaad bulshada la wadaagaysid intaadan la wadaagin ka hor inaad ka fikirtid waxaan fariin khaldan miyuu gudbinayaa mise mid saxan ma cid gaar aan ku taargad gareynayaa inaad waxyaabaha biaska oo dhan aad ka saartid sidoo kale maadaama waxaan ay dad kale ama kaaga dayan karaan ama aamini karaan in aad ka dhowrsatid inuu halka dambi kaaga yimaado oo wax khaldan bulshada la wadaagtid ama wax lagu ciqaabi karo inaad dambi ku dhacdid sidoo kale marka aad qofka hor taagan tahay oo aad wax u sheegaysid waxa hadalkaaga la socda qofku waxa la yiraahdaa impressionka iyo magaranaysa waxyaabo badan baa message ka qayb qaata marka waxyaabo badan oo ficilka qofka suuqaabku hadalka u dhahay waxaas oo dhan baa hadalkaaga ka maqan text qalalan baa soo dhigaysa meel tusaale ahaan marka inaad ka reebtid oo ka fikir wax kasta oo qofku si kale u turjuman karo in macnaha aad ka reebtid oo hadal magaranaysa taban oo magaranaysa ay ka baraxla waxyaabo qofku uu si kale u tuhman karo marka ina mas'uuliyad si mas'uuliyad ku dheehan tahay hada wax bulshada la wadaagaysid inaad ka fikirtid sidoo kale inaad sharciga ilaalisid inaad diinta ilaalisid intaas haday ku dabraan mas'uuliyad qofeed iyo sharciga iyo diinta intaas haday ku dabraan waxaan aaminsanahay inaad si bulshada anshax leh magaranaysa aad wax u gudbin kartid ama uga qayb qaadan kartid su'aasha kale sida qofku xogtiisa u ilaalin karo way jirtaa waxyaabo badan horta ma jiro social account saan anigu aaminsanahay waxa aan la jabin karin ma jirto laakiin herarkii bay kala leedahay oo xogtaada waa adkeyn kartaa tusaale ahaan inaa qaabab la isticmaalaa jiro oo two factor verification qaab la yiraahdo oo ah in magaranaysa laba jeer uu ku xaqiijiyo Facebook oo kale tusaale ahaan ama social media oo kale inuu password marka aad device cusub ka soo galaysid sidoo kale inuusan password kaliya uusan kugu aqbalin uu numberkaaga taleefankaaga oo kale text kugu soo diro marka kadib aad gashid sidoo kale notification buu kugu soo dirayaa meesha laga galay iyo waxyaabaha noocaas oo kale haddii aad magaranaysa qof la socdo fahansan tahay qaabab kale oo waxa jira u adkeyn kartid marka way yaraanaysaa cidda ka jabsan kartaa aad buu yaraanaysaa marka sidoo kale waxa sameyn kartaa xogtaada waxa u ilaashan kartaa inaad xogtaada baylahada oo kale ka ilaalisid tusaale ahaan emailadaada iyo taleefankaaga khaaska iyo waxyaabo badan inaadan magaranaysaa aadan publica kula wadaagin marka waa mowduuc balaaran oo dadka u baahan in macnaha ama tababar laga siiyo ama magaranaysa lagu wacyigeliyo khaasatan dadka caanka ah oo kale ama bulshada muhiimka ah oo kale oo targetka oo dadka badan ay target gareynayaan kasoo baxayaan meesha tan laga faa'iideeyo ama loo isticmaalo si wanaagsan waxaa markasta muhiima haddii aanu qofku dee akhlaaqiyaad lahayn si kasta oo xeer iyo sharci iyo wax loo soo saaro ama qofkii loogu sheego ma xadidmayso sababtoo qofku isma bedelayo aaladda haddii la bedelo qofkii isma bedelayo marka horta marka koowaad waxaa muhiima in akhlaaqiyaadka marka hore bulshadeenu ay xoog tahay marka taa laga yimaadona dee إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسي حكوا لي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أيضاس أما سورة حجرات ودوم على دعوة سورة دي آدابت أيضاس وحي إن فريسا إن هديبا عدي ور إنو كانتو لما أرانينا عيدي كرات ستان إنا هدي أرات ستوا وكدر أنتو أدابا دادكي حمان إيو نبيبين إيو بلاي رات هديبا عيدي وركو كانتو إن الله بيو marka waana aayad saxaafada oo ama media hodan si guudba hadii technology-gan uu noqdo de media maanta waxa ah qofku hadii uu Facebook leeyahay oo dhacda adoo safar abuurtin la dhacda kala kulantid adoo shakhsi ah de Facebook live ba soo gashay just adaa sameeyay media adaa warbaahin adaa xilligaasi booskii ku jira marka maanta media dadkii oo dhan maadaama ay communication-ka ay sameynayaan waa ayadaas way qabanaysaa cid kastana way si guudna ummadda dhan waa laga rabaa haddii warba lagu keeno
xataa kuturkuteenti maaha waa xogtii dhabtahayd marka waxaa la rabaa in la xaqiijiyo oo layska hubiyo oo wixii mar kasta waxaa aragtid iyo wixii aad maqashid iyo wixii lagu keeno aad xaqiijisid dhanka kalena miidiyaha laftooda haddaan dhinacan anay fildigan ila xidhiidha ka istaago shuruuc bay leedahay oo ay tahay inaa la ilaalisid kuwa anshax baa la dhahaa waa inaa ilaalisaa oo ay ka mid tahay kow in sugnaanta miidiyaha adduunkao dhan iyagoo haddana leh shuruuc kala duwan iyo hadafyo kala duwan BBC Aljazeera kuwa Soomaalidu hadafyay leeyihiin mid kastaaba hadafyo gooniye iyo ujeedooyin iyo waxay xambaarsan yihiin hadaf haddana saasay tahay waxa jirta shuruuc la wada ilaaliyo Aljazeera fikradii carabnimada iyo bay faafinaysaa BBC VOA kuwii reer galbeednimada iyo luqadoodii iyo wixii ay iyagu muhiim u arkaan bay wadaan laakiinse waxay leeyihiin ahdaaf aan laga leexan karin labada dhinac iyo tan ruushka iyo mid kasta wuxuu odan oo ay ka mid tahay kow in wixii ay sugan yihiin haddii halkaa qof kaaga soo baxo warkaas BBC hadday sheegto qofka Soomaaliga waa rumaysanaya laakiinse lagama yaabo inuu warbaahin Soomaaliya xoogaa waxa laga yaabaa inuu su'aal geliyo dhaho maybe warbaahintaas xamar weeye Puntland way ku kacsantahay ama tan waa Puntland xamar way ku kacsantahay ama waqooyi marka laakiinse BBC uu rumaysan sababta waxa keentay waxa weeye sugnaanta marka koowaad waxa ah in waxaasi ay biyo kama dhibcaan yihiin ay sugan yihiin waxa yana shuruucda kale oo muhiim ah ilaaliyaan media waxa kamid ah in ay yihiin dhexdhexaad oo wixii ay laga ilaalinayo in qora lagu takrifalayo ama dhinac uu ka radan yahay hadii iyadoo halka wax sax ka jiraan halka hadii shil uu ka dhaco dawladdu si bay rabtaa in loo sheego qofkii dhibta soo gaadhay wuxuu ku sheegayaa si ka badan wixii wuxuu kula aniga askari baa igu tacadiyay saatan haduu doono kuma basameeyo dawladdu waxay rabtaa in wixii la yareeyo oo la khafiifiyo la dhaho meesha shil yara ka dhacay sababtoo hadii dhibtii la buunbuuniyo iyada dhibaato ku tahay oo culays dawladdu maxay saatan u qaban weyday dadka dhan baa canaananayo hawl badan baa marka waxa la rabaa inay dhexdhexaad tahay wixii oo sugan adoo aan dawladdiina ku tacadin qofkii kale dib u geysan wixiiba marka waxa laga rabaa ama media ama social media qofka ha isticmaalayo inuu dhexdhexaadnimadaas ilaaliyo sugnaantii ilaaliyo waxaan la dhaho privacy ama qofka xogtiisa gaarka ana tan amaanka iyana soo hoosgalaysaa waxa jira waxyaabo ay muhiim tahay in la ilaaliyo oo ah qofka shakhsiyadiisa wixii ah lagu ma xadgudbi karo tusaale ahaan madaxweynuhu reerkiisa caruurtiisa waa nolol gaar u leeyahay qof binaadan xilkan uu ku hayo marka laga yimaado marka ama hadii siyaasadu dhaliilaysa ama hadii ay tahay qof wax ka qoray laakiin shakhsiyaadkiisa iyo dabeecadiisa wuu waalan yahay ma oran kartid sababtoo adiga lagu ma dirsan waalidiisa waxyaabahaas marka way ka sii xaq jiraan marka loo yimaado caruurta oo kale iyana waxa jirta UNICEF qodobo la raaco shuruuc oo ay tahay in la ilaaliyo inaanad ilmo yar wareysan karin sawir ka qaadi karin hadaa cid la kulan kulid laakiin inaga wax laga yaabo qofkii inuu halka iskaga yimaadido la iska sawiro dad qof uu shacab iska wareysto leeyahay war ma talent uu leeyahay isagoo qaawan waxa laga yaabaa berri ka maalin qofkan inuu ilmahan yar inuu madaxweyne noqdo adaa isagoo qaawan maanta soo bandhigay dambigiisii adiga dadka laga yaabo in ay qofkii discriminationka iyana waa ka sii xaq jirta social media laftiisu isna shuruuc buu sileeyahay Facebook oo kale uu ka xanibaya hadii qof ilmo yar qaawan soo galisid ama qofna nabarro oo kale leh waayo lama ogola inay tiraad kan madow yahay kan wacdi intii diintiina inoo diidayso un bay iyana sii dabqayaan marka waxa la rabaa qofkii akhlaaqiyadkeenaas in la ilaaliyo ama media ama ahaan social media da isticmaalaysid in akhlaaqiyadkaas oo dhan aad ilaalisid warkana ay iska hubisid dadkan waxa loo baahan yahay warka ka qaataan ilaha saxda ee warbaahintii maanta waa laga yaabaa in laga dheereeyay waa laga yaabaa in xogihii uu qof shacab soo sheego laakiin adiga waxa laga rabaa inaa hubsiimada tan meesha saxda ee warbaahinta la garanayo aad warka qaatid oo ku dheeraaday hadii aan su'aasha dambe oo ahayd xogta see loo ilaalin karaa engineer Xamda sheegtay social media dan two factor bay leeyihiin waa mid kamid ah waxyaabo lagu ilaaliyo oo ah in code uu ku soo dhaco markay xirtid waa sida basic ah waxa kamid oo kale oo muhiim ah dadkan waxa laga yaabaa magaca aabihii magaciisa inuu koob 2 3 ku darsado intaas ah qofka Soomaaliyeed inta badan password ah amaba uu ku leeyahay niyo Facebook-gayga hadaan xiro password-ka garamaayo waligiiba ma xirin hadii mobilka caaw laga qaato ka war marka horta waxa muhiim ah meesha tan waxa la dhahaa marka password iska la sameeyo website-da lagu eega jirta lagu hubiyo intee kan lagu jabin karaa sanadood intee kayga oo kale raaxasan ku eegay 3 milyan 300 oo kun oo milyan oo sano
laguma jebin karo wuu kuu sheegayaa kan intee jeer lagu jebin kara taas waxaa keenaysa wax muhiima baasweerkaagu inuu ka kooban yahay magacyo xarfo symbols numbers in qofku uusan familigaaga naanaystaada magaaladaada qabiilkaaga waxaa jeceshahay waxaasoo dhan waa inaad ka ilaalisaa sababtoo waa lagu dayayaa maxamed aa la dhahaa saalax la dhahaa ku eeg weriye ku eeg waa lagu wada eegaya kulli marka waxaasoo dhan waa inaad ka ilaalisaa markii aad laga yaabo raggu inaanan sawirro badan aysan iska qaadin oo wax badan laakiin markaas gabadh sii tahay waa inaad kaydka badanaa waxyaabaha aad ka baqaysid inay kaa faafaan inaadan ku kaydsan mobilka oo kale oo aad flash ama waxaad adii hadhow aadan ka baqayn aad ku kaydsatid haddii mobile oo kale haddana uu kaa dhici karaa ama qof kaa qaadan karaa waa inaadan uu kayd ku noqo wixii xasaasiya muhiimba ma haddee sabab sawir qaawan ugu sidatid mobile ma dee adiga miyaa isdaawanaya uma baahnid waa ka bax sida lagu yarayn karo haddii soo koobo ama yarayaba waa in ma la samayn karo macnihii hadda for example dadka hadda ugu badan ama dhibaatooyinka ugu badan ama haystaan waa dhalinyarada oo mobiladan la isaga iibinayo ama maaragtay waalidku ay loo gadayo soo 20 bagaarin ama 15 jir ama ka yar marka horta haba u gadinba marka hore mobilkaas ba ha u gadin duusan aan qof isku filan oo maaragtay aqliyan gaarsiisan heer uu fahmi karo waxaan tan kale waxa weeye inaad saada hore u sheegay wacyigelin inay jirto oo qofkan la fahansiiyay wax kasto aad halka dhigto خلاص socotay Soomaali waxay dhigi jireen been fikirtay run ma gaarto hadda technology inta jirin bay maamadaas hore u timi soo hadda waa yaaba ka dabatay karab wax yar oo inagu aan sheegnay laga yaabo qof inuu sii gudbiyo kadibna oo sida caadiga ah internationalka laakiin hadda wax yar oo aad ku qortay message yar aad been ama wuxuuna caalamka oo dhan gaarayso laga yaabo inay dad badan dhibaato gaarto oo way ka dhacday wadamada Hindiya iyo Mexico iyo meelo kale iyo Myanmar iyo in dad la laayay oo la xasuuqay sida muslimiinta Rohingya oo kale markii maartay been iyo waxyaalaha la sameeyay oo falsa ah lagu muslimiinta lagu dhaleeceeyay si markaasna dadkii inta kacayna ay dileen oo maartay laayeen marka sida lagu yareyn karo waxa weeye horta dhalinyarada inta iskuul ku jiraan baan waxaan dhihi lahaa yaan looba mobilka ba yaan loo gaday haddii mobile la siinaya kan caadiga ah iyo miskiinka ah iyo tanka hadalka ah haloo gado ogaalka iyo u sheegid waxa kan aad samaysid bari adeeg hadda way imanayaan hadda for example nin 20 jir ama dadkan yar yar hadii waxyaalo badan oo ay sameeyeen hadii waqtiga inta loo buubsiyo 40 year asagoo meelaha jira la daawadsiyo leeyahay waxaan ka waran aad what do you think qofkii waa isla yaabaya moogtahay oo wuxuusan bari aqbalayn inay maanta ka xirooto waa record uu ku jiro marka wacyigelintaas waa koow mobilkaas inaan ilmaha inta yar yihiin aan la siin hadda wadamada horumarsan si China-ska oo kale gameska iyo waxyaalahaas shirkadihii teknolojiyada sida Tencent oo kale Alibaba iyo kuwa sameeyay waxaas Baidu iyo waxay ku khasbeen dawladdu inaan 90 daqiiqo ka badan xilliga iskuulka maalmaha iskuulka aan la isticmaali karin gamekooda qofku asaga automatically iska off gareynaya weekendigana waxay ka dhigeen 180 minutes 180 daqiiqo weekendiga markii Saturday Sunday oo iskuulo bay jirin heerkaas mandate gareysay dawladda China-ska mandate gareysay waana ku khasabtay shirkadii okay waa sameynaa bade game-ka sameynay popular-ka iyo aad ka loo xiiseynayo bahalka marka taas iyadu mechanism-kaasna waa jiraan oo teknolojiyada kamid ah laakiin inagu Soomaaliya joognaa waxba ma haysanaba qof maartay China ma joogtid Mareykan ma joogtid meel kale ma joogtid halkan aad joogtaa wax ogaal fiican oo ma lihin hadda fiiri waxa socda hadda oo dhibaatada dadku ma qanay fans inay arkeen game wixii la gambalki khamaarkii baa hadda dhalinyaradu wada ciyaarayaan oo payment wallets inta lacag lagu shubto meel ay ka yimaadeen kaararkii bangiyada la helay wala khamaariya sportigii baa lagu khamaaraya fardaya cararayay wixii adigu sheekadii betinka taalay caalamka kale baa loo keenay betinkuna hadday waa sida khamrada oo kale baa la mamnuucay waa xaraan diiniyan خمارك معناه صوما إن الخمس وما يسمى الإسلام رجل من عمل الشيطان ويلا بدن القرآن كإلهي وحيالها سيدا خمرض وكلب وحارين لأن هذا وكود ترى وعيار يعني بين فايف عندك أنت أنا إي تيمي واكن وحيالها كلا تود باتوين كيشرو ده وجود عيدتك أو سيدا كلا يجو بوس سكيم سكاني وحنا استدور صاري وترى بدن وصومالي ده وجود عمان وبنا يجون وواحد جره
marka sida looga celin karo dadka waa adag tahay maadaama inagu hadda aanan samayn karin macni inaan nahno Facebook qofkanu aduuba 25 sano ka yar yahay 8 minutes ka badan maalintii ma isticmaali karo ma samayn karno ma hayno marka in wacyigelintaas la wado waalidka la baro hadda problemka jiraba wuxuu yahay dhalinyarada waxa ka daray waalidkii baa ka daray qofkii rabay inuu waxaan celiyo ayaaba ku jiraba asagii baa dhex dabaalanay waa fulaan sac mashquul ku ah Facebook whatever wixii adigu technology islaam arkay dhahaysay ciyaar caruurteeda waxay cunaan iyo waxay ka ma baaqaan nin wal meel buu xabad la galay bas waa la kala maqan yahay marka la garto oo dhibteeda iyo waxeeda ayaa markaas iman karta in yaraato dhibtiisuna yaraato maasantiin sida injineerku sheegay anuu qodob kaliya ku biirinay waxa weeye qodobkii ah in wacyigelinta la wado waliba khatarihiisa oo batay awgeed waxaan ku boorin lahaa ku sii dar lahaa in iskuulka iyo waxbarashada caadiga lagu daro inta badan dadku waxay ka maqlaan culimaduna inay u kacaan oo ka hadlaan dhibaatadan hadda soo siyaaday marka in anigu waxaan kusoo koobi lahaa wacyigelinta oo la laba jibaaro waalidiinta waxbarashada iyo macallimiinta iyo culimada diinta oo iyaguna si gaar ah uga hadla iyo inta aqoon-yahanka oo markasta laga hadlo kulamada noocan ah oo la joogteeyo waxaan moodaa in hadda competition bilowday oo dadkii intii sida khaldan u isticmaalaysay ay ka hormartay intii sida wanaagsan u isticmaalaysay marka waxaan oran karaa de wacyigelin dad islaamina nahay in dhanka diinta loo noqdo oo culimadu ay aad uga hadlaan iyo aqoon-yahanka waalidiinta laftarkoodana la baraarujiyo dadka sida khaldan ugu shaqaysta aaladda tiknoolajiyadda sida YouTube, Facebook ama TikTok, Snapchat nooc walba ha ahaado maxay u dhimi kartaa ka faa'iideysiga tiknoolajiyadda waxay u dhimi kartaa dadku way isku daydaan in dad badan oo kale oo ku dayda inay timaado oo hadda generation baa soo kordhaya soo koraya ilmo yar baa soo koraya oo hadhow bari noqonaya garanaysa bulshada maanta marka markay arkaan sida loo isticmaalayo inay moodaan wax iska caadiya oo si ka daran ay u isticmaalaan oo dadkan hadda maanta lala yaaban yahay u isticmaalaan dad ka daran inay soo baxaan oo ay horseed u noqdaan bay horseedi kartaa waxa la yiri sidoo kale waxaan ku boorin lahaa dadka inay bataan dadka sida wanaagsan u isticmaala si macnaha dad jiilkaasi ku dayan karaan oo ay u imaadaan waxa la yiri hadii bulshada loo daayo intooda ma garanaysaa maankooda hooseeyo ama sida khaldan bulshada u jihaynaya ama haddii aan si kale u dhigo bulshada inteeda aqoonta leh ama wax ku soo kordhin karta dadka haddii aysan kaalintooda qaadan waxa qabsanaya intooda liidata oo ma garanaysaa oo baa hormuud u noqonaya tusaale ahaan haddii aad aqoon dadka u faa'iideynaysid haddii aad mawduucyo aqoomeed oo kale ama bulshada waxay wax ka faa'iidi karto ama dhaqan wanaagsan oo kale haddaad kusoo bandhigi kartid waxay keenaysaa in dadka mindsetkooda isbedelo oo dad badan oo wax wanaagsan soo geliya marka at least xataa haddii ay 50-50 noqoto xataa waa wax ma garanaysaa la qaadan karo laakiin bulshada 90% inay si xun u isticmaasho 10% inay taasaa dhibaato ah waxaa jirta qolo aan website-kooda mar akhriyay oo la yiraahdo education for common sense ba waxay diyaariyeen syllabus digital citizenshipka in la diyaariyo responsible digital citizenship oo ah ma garanaysaa bulshada berri oo bulsho responsible ah oo teknolojiyadii si fiican u isticmaasha inay bulshada berri noqoto bay iskuuladooda u diyaariyeen waa Mareykanka gobol kamida dugsiga xadaano ilaa iyo dugsi sare maadaama ay iyagu wada digital wax ku bartaan inaga iskuuladana waa ku yartahay in ama computer wax lagu barto ama taab oo kale haddana ilmuhu markuu guriga joogo taab uu isticmaalaya ama marna kamaynu marnin nidaamka iskuulada uun bay ka maqan tahay marka ilmaha yar oo kale si qaab uu wuxuu fahmaa in macnaha waxa la barayaa in
tusaale ahaan waalidka moobilkiisa oo kale hadduu rabo inuu isticmaalo inuusan iska soo qaadan ogolaansho oo kale weydiisto in macnaha inta uu moobilka isticmaalo iyo intuu caadiga waxyaabo kala qabanayo oo kale inay miisaaman tahay iyo qaabab adigu treenino qaab psychology oo kale wax loo baraya ilmi in wax loo fahansiiyo si uu magaranaysaa berri uu soo koro ilmo ilaa iyo heerkiisa u hooseeyo heerkiisii dhexe heerkiisii sare la soo barayay macnaha qaabka loo soo isticmaalo hadhow isagoo diyaarsan magaranaysaa bulshada Soomaaliya qof weyn oo kale inaa wuxuu sheegto kuwa adkaanaysa laakiin ilmaha yararka ah hadda inta tababaro xataa loo qabto qaabkaas oo kale servicekaas oo kale in lagu soo daro oo iyagoo yarar wax la soo fahansiiyo waayo waxay jiilka berri bay noqonayaan si aysan macnaha dadkan sida khaldan hadda u isticmaalo aysan u jihayn oo khatartaas oo kale looga baaqsado waxay dadkan sida xun u isticmaalaya waa u jeednaa dhibaatada iyo waxa ay meeshay gaarsiiyeen oo hadda qabaayil xataa inta la soo fariisiyo la leeyahay maartay reer hebel iyo la tartansiinayo qabyaaladii wixii awalba dandishaday maartay la promote garinayo oo la bahalkeynayo marka teknolojiyadan sideedaba asal ahaanba algorithmska ama habka ay ku dhisan tahay baa wuxuu yahay mar walba wixii markaa ay isiraahdaan waa xooga xiisaa laga helaya ayay soo horumarinayaan oo qaabka hadda teknolojiyadan u dhisan tahay ama waxaan la yiraahdo infinite scrollka oo saa aad iska leedahay uun hadba page-ku automatically soo update garinayo waa ku talagal waa loogu talagalay qolyihii design gareeyay ama sameeyay ama psychologists-yaashii injineeradii computer science wixii ayaa waxaan alifay oo yiri okay sidee ku heli karnaa dadku inaysan waxaan ka kicin oo ka foqin oo maar iyaga hadda markaad fiirto shirkadaha waaweyn dadka iska leh oo teknolojiyada caruurtoodu ma isticmaalaan ma yaqaaninba waxa arkaysaa soo chicken iyo maartay digaag iyo waxa iska ciraysanaya aris kala ciyaaraya fardo iska fuulfuulay mataqaana oo computer mouse meesha online book iyo qalin iyo school iyo bas iyo normal life bay rabaan inay ku koriyaan oo caadi because way ogyihiin iyagu dhibaatada waxaan u keenayso qofkan yar ama sidii maskaxiisa ugu ciyaarayso laakiin adiga miskiinka oo caalamka iska jooga waxa weeye wax ka celinaya wax ku sheegaya ama wax ka ma jiro marka waa dhex dabaalanaysa marka dhibaatada ay leeyihiin waa muuqataayo say u sheegtay engineer Xamed waxa weeye waa lagu dayanayaa aniga walba yaan laga badin bulay reer hebel baa lagu caayay mid kale iska soo fariisanaya waxa hadda jira oo dhan waa waxaanu ka dhirgsanahay marka dib uun bay sii keenaysaa iyo wixii inay sii xumaadaan oo ayna sii dadku qofba uu meeshu jambarkiisa ama dhinaciisa uu bas difaacdo kaliya halka dhufayska galo oo sida haddaba ay tahayba marka dhinaca wacyigelinta iyo aqoontan waxaan horta maxay yihiin in dadka la fahansiiyo oo iskuulaadkana runtii dhinaca fiican seebo ku baranaya ilmihi hadaanba computer loo dhigin oo la barin programmingkii iyo designkii iyo waxyaalihii maartay teknolojiyadan asal ahaan oo sidoo ugu dhisi lahaa asagoo hadhoodii oo dhinaca fiican marka uu wajahi lahaa marka mar walba waxay ahaanaysaa waxaan hadda aan hayna baa jiri doono marka dhinaca wacyigelinta iyo aqoonta ayaa asal ah insha Allah hadana waxaan ku dhownahay ama soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena waxaan rabaa inaan ku darsado su'aal banalkeena su'aalaha ku qoran ka baxsan saameyn weyn ku leh dadka aadka u isticmaala teknolojiyada hadda badanka waxay u badan yihiin dad Soomaaliya annagu dadka aan ku xirannahay oo dhan haddana dadku waa kala qaybsan yihiin dadka qaybna waa qurbo joog qaybna waa dal joog dadka dal joogtaana aad bay u isticmaalaan aalada TikTok-ga iyo YouTube-ka wadankeena waxaa ka jirta shaqo la'aan aad u baahsan dadka badankood iyagoo aan wax baran bay waxay aaminsan yihiin in teknolojiyada ina YouTube ama TikTok soo gashay ina lacag ka sameyn kartid walina ma arkin qoraallo ama dad khubaro ah oo ka hadlaya oo barnaamijkan aad u falanqeynaya marka ma sida ay dhalinyaradu aaminsan yihiin oo leeyihiin TikTok iyo YouTube lacag baa laga sameeyaa oo qof walba uu shaqo ugu doonanayo baa sax ah mise wacyigelin badan baa jirin saameyn intee leeg bay isku yeelan kartaa shaqalaanta wadanka taagan iyo isticmaalka wax weeye teknolojiyada wadankeena oo sida xun loo isticmaaliyo aadka u soo badanaya dhammaan social media hadda waagii hore shirkadda YouTube soo qoxay ku soo gashay in ay lacag ay ku bixiso laakiinse hadda social media oo dhan waa run lacag baa laga helaa siiba inaga Afrika uma badna in waxaan AdSense-ga la dhaho ama waxa la dhahaa in-stream ads uma badna Afrikaba tusaale Facebook oo kale waxa kaga jirta Masar iyo Koonfur Afrika South Africa labada bas kaga jirta laakiinse adduunka kale
dalalku way usoo kala horeeyaan Mareykanka iyo Yurub tusaale Ingiriiska Faransiiska Jarmalka way usoo kala horeeyaan Turkiga oo kala dhawaana lagu daray kulligood social media TikTok Facebook YouTube Instagram Twitter Twitter ku xitaa wuu leeyahay hadda space-ka marka la qabanayo ticket baa lagu soo daray oo ticket-ka waad iibsanaysaa tickets inaga hadda iska furanaa laakiin se ticket-ka waa iibsanaysaa kalaba hooska saas oo kale tickets-kaas qofku iibsanaya caaw kale munaasabadana Somali Innovation Hub Talks baa qabanaysa kadibna waxa la oranayaa online ka soo gala marka qofka soo galaya waa inuu ticket soo goosta ticket-kaas halkaas lacagta ku bixinaya isaga saas looga helaa meelahan lagu wada hadlo kale hadda tusaale ahaan inay dadkii YouTube wada furtaan ama TikTok furtaan ama Facebook pages furtaan waxa keenaya lacagta waxa looga helaa sidii YouTube-ka markii hore qofku de channel uu samaysanaya kun subscribe ama kun qof markay qofkaasi uu subscribe garayso oo ku biirto 4,000 saacadoodna loo daawado ba YouTube-ku qofka wuxuu u bilaabi jiray lacagta waxay ku bilaabataa video-ga soo gelisid shirkado kale iyo dad kale oo isticmaalaya social media ba waxay sameynayaan muuqaalo iyo fiidiyoyo iyo sawirro iyagu leeyihiin way soo dhiganayaan barahooda bulshada ama Facebook ama TikTok lacagtan meel kale ka imaanayso sawir aan iska qaadaya Facebook-gaan dhigaya waa sponsor gareynaya Mastercard iyo Visa card iyo waxaan soo furanaya waa sponsor gareynaya waxaan u sponsor gareynayaa inuu dad badan gaaro inaan likes badan helo waka sawirkaaga marka ama video-gaaga adiga sponsor gareysay lacag kaaga baxday $5 $10 $20 gelisay 2 day 3 day sawirka sponsor gareysay dadka waxa laga tusayaa maadaama adiga lacag bixisay dad kale baa laga tusayaa hebelow ba muuqaal soo galisay iyana Facebook muuqaalka dhexdiisa adoo daawanaya xayisiis ku soo galaya badana waad aragtay xayisiiska halkan soo galaya waxa laga yaabaa inaad Soomaali ku aragtaan intiina badan sababta waxa way qofkan Soomaaliga ah ama shirkad heblaayo xayisiiskan way soo sponsor gareysay lacag ay ku soo shubto lacagtii adigana marka video-gaagi maadaama uu yahay mid la daawanayo xayisiiskii baa shirkadda kale soo dhex gashanaysa markay soo dhex gashato lacagtii uu qofkaas soo bixiyay baa adigana wax lagaaga jaraya sidaas lagu helaa ariska marka culimadu markay ka hadlayaan diinta oo kale waxa la dhahaa xayisiisyada qaar waxa arkaysa waxyaaba diinta ay haboonayn oo Ciise Masiix oo Soomaali lagu turjumay baa soo gala xayisiisyada qaar waad arkaysa marka waxyaaba wax soo gala anshaxa ka baxsan waxyaaba qaar YouTube-ka oo kale wuxuu leeyahay xayisiisyada qaar iska control karta iska xiri karta aniga waxaas diinteedu ma banaana waxyaabahaas waa iska reebi kartaa waa iska joojin kartaa tusaalaha website-da waaweyn hadaa booqatid BBC Al Jazeera xayisiisyada Apple iyo shirkadaha waaweyn ee adduunka bas baa soo fuula shirkad nooca oo Soomaaliya iskama soo fuuli karto marka laakiin Facebook oo kale wali ma xadidin Facebook xayisiis kasta ku soo galay iyada lafteedu hadhow waxaan laga cunaa aakhirada waa la isweydiinaya oo lacagtan xagee ka soo gashay waa waxyaabo la isweydiinaya kamid ahayd adigana waxa laga yaabaa inaad faafisay diin qofkii uu isagoo adoo wacdi soo galiyay ama adoo wax caadi war soo galiyo qofkii warkan ka sugayo adaa u sababay xayisiis baad furatay waad ogolaatay xayisiiska furatay qofkii wuxuu u faafiyay diintiisii mid aan ahayn qofkan wuuba u sii bogo linkigii buu click siisay website ku sii galay saas dinta uga baxay dambi waa ku yeelanaysaa sababtoo adu ogolaansho la'aanna waxba iskama dhacaan wax kasta wuxuu leeyahay ma aqbashay bay ku oranayaan saacada ugu horeysa xataa hadii tuugo ay tahay ma aqbashay baa lagu oranayaa waayo waa waajib in qofkii la weydiiyo marka social media lacag waa laga helaa faa'iidana waa laga helaa laakiinse waa sababta dadkeenu u keenaysa inay wadamo kale u tahriibaan in ay wadamo banaanka aadaan in qofkii uu Facebook-giisa qof kale ku wareejiyo dabeetana hadhow laga jabsado dhaho waa layga dhacay waxyaabahaas oo dhan waxay keenaysa mooto iibinaya wax kale u iibinaya lacagta u diraya lacagta caadi toos caadi lacag caadi qofku ku shubaya dadkan iyaguna sidaan $100 ugu shaahayna laga yaaba micni aan $1 ugu shaahayna laga yaaba $100 ugu shaahan marka iyadoo waa life marka way ku jirtaa laakiin dadku waxa loo baahan yahay inay dadku marka hore aadaabta inta la xoojiyo la isweydiiyo oo dhahniyo xoolahan maxaan ku helayaa markaan dad isku diray laba qabiil isku kiciyay aan saa ku helay ilmahaagii bay galaysaa adiga naftaada bay galaysaa mustaqbalkaaga galaysaa guri baa laga yaabaa ka dhisid waa isweydiinaysa marka waa in wax wanaagsan aad dadkii u soo gudbisaa oo xaysidii aad iska counter garashaa waana wax lacag badan maaha sida hadda ay wax ku markii hore kale Facebook oo kale lacag badan u bixin jiray laakiin hadda aad u yareeyay marka lacagta yar oo dhibaato badan kugu soo galaysa oo rafaad badan waxa ka fiican adoo ilaahay risqaas ka sii badan weydiista hadiina aad sameynaysid wax xun maaha inaad jid wanaagsan lagu raadiyo ayaan boorinaya su'aasha u dambayso aan ku soo gabagabeynayay liibaan gudoomiyaha ururka dhalinyarada Biyaan
su-aasha waxay leedahay maadaama uu shaqo la'aan baahsan ay jirto saameyn ma ku yeelan kartaa in teknolojiyadda si xun loo isticmaalo ama qaab khaldan iyadoo qofku uu lacag ka raadinayo aad baa umahadsan tahay waxaan oran karnaa haa waayo dee siyaabo badan buu qofku markuu wax raadinayo wuxuu sameeyaa hadda waxaaba dhacdayba in loo soo dhex galay oo qaybtood iyagoo waddanka gudahooda jooga diintoodii saameyn lagu yeeshay dhaqankoodii la bedelay qaabo badan dadku ay uga faa'iidaysteen diintoodii shaki la geliyey sida dadka qayb la sheegay iyagoon gurigooda ka bixinba in internetka dhexdiisa laga saameeyey waxaa kaloo lagu saameyn karaa dadkii markay arkaan dad le lacag baan samaynaynaa Facebook oo kale ma hubo laakiin waxa ugu badan inta ugu badan lacagta laga samayn jiray wuxuu ahaa YouTube oo dadkii qaysaskii isku furayeen la qaylinayay la isdhibaateynayay qayb waxaad arkaysaa dadka tooraya ku cayrsanaya qaybo magaciisa garaynaya dhibaataynaya waxyaabo badan oo khalad ay u samaynayaan si ay lacag u helaan marka isaga laftarkiisa waxa laga yaabaa inuu dambiyo badan soo siyaadiyo marka anigu liibaan ahaan waxaan soo jeedin lahaa dowladda Puntland iyo dowladda Soomaaliyeedba in ay hirgeliso oo la xoojiyo shuruucda oo sharciyo loo sameeyo dhibaatooyin badan baa ka dhaca familiyada qayb waxaad arkaysaa oo le TikTok baa lagu furay waxaad arkaysaa carruur badan iyo waalid iswaayay waxaad arkaysaa kuwa dhibaatooyin u gaadhay oo ama iyagoo wax magaciisa garaynaya qoysaska ay ku burbureen si khaldan in badan way u raadinayaan shaqo la'aanta marka wax badan bay ku keenaysaa qofkii maadaama uu duruufaysan yahay in duruuftiisii si meelahan aad uga bixi kartaa marka anuu ma qabo dee waxaan dhalinyaradu hadda ay aaminsan yihiin ee maalinta ajirka in aad Facebook soo gashid YouTube soo gashid degdeg lacag u samaysid iyada laftarkeedii oo dhibaato iyo khaladaad badan ay samaynaysid haddana way jiraan dee dad entrepreneur oo ganacsiyo yaryar sameeyey oo faa'iiday kaliya maaha in social media si degdeg lacag looga samayn karo dhibaato badan bay dadku u soo mareen in la barto inay soo gaaraan stage ay lacag ku sameeyaan wax badan baa ka horeeya qofkii marka horeysa waxa la in wixii aqoon u leeyahay iyo khibrad ka bacdina dee wixii shuruucdii iyo wixii uu fahansan yahay isagoo aan saameyn ku yeelan marka way fududaanaysaa inuu markaas income ka sameeyo laakiin way adag tahay qof yiri shaqo la'aan baan uga baxaya inuu si degdeg intuu halkan ku galo inuu degdeg wax uga sameeyo aad baad u mahadsan hadalka liibana wax yar ku darayaa social media sida marka hore nidhiba injineerkuna yiri waa Salaaxuddin Xadeyn laba af bay leedahay maanta adduunkii technology iyo space in la aada lagu tartamayaa anigu ma qabo in dadka loo bahla geliyo oo la dhaho meesha way xunta laakiin si faa'iido leedahay way fiican tahay ganacsi hal abuur dhaqaale fikrado cusub wax cusub la keeni kara oo badan oo inaga dhan in anfici kara ba laga samayn kara laakiin waxa u baahanahay in dadkeena akhlaaqiyadkooda iyo aadaabteena iyo shuruucdeena aan hagaajino aawadi Facebook ugu soo maago xukun lagu xukumo ma jiro aan ahayn xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo 1960 la qoray taasna waa dib moogtahay waa in shuruucdii la hormariya laakiinse dadku shirkadaha adduunka labada waa in la bartaa waa in laga faa'iidaa hay'adaha iyo waxan oo dhan waxa laga yaabaa shirkadaha Facebook ma sameeyaan dad shakhsiyaad ah sameeyo oo ka qanacsada oo soo hal abuura marka inaanu inagu xoog saarno in technology-ga la barto dadka kale looga faa'iideeyo ayaan xoojinayaa waana meel xuquuqda insaanka loogu doodaa dadka waxa laga ganacsiyadana hadda ugu casrisan ee hadda dalka waayada soo galo technology bay ku base garaysan waa meel qofkii xuquuqdiisii uu ku heli karo oo dawladda lagala xisaabtami karo dadkiisu qofkii su'aal ku gaari karto hadda inaga waa ogeed gaaskii ba $5 lacag ku dhow laga dhigay because of dadku in ay Facebook sawirada kaliya iyo telefoonada ay sameeyeen marka waa faa'iido badan ay leedahay laakiin waxa u baahanahay akhlaaqiyadkeena in dadka laga xoojiyo dhaqankeena aan la tagno oo la dhaho iyadoo adoo khamiiskaaga gashan adoo dharkaaga dhaqankaaga gashan caadi u gal meesha adoo sidii ninka China joogay ugu jira u galin iyo in shuruucdii
la horumariyo oo lagu kala baxay dadkuna aynu loo bahlagelino qofka haddii dee gabadha hadday tiktok gashay xaqay u leedahay rightska adduunku ka mid yahay hadda internetku oo sida caadiga ah social mediana wuu ka mid yahay oo dee qofku maanta ma noolaan karo haddii anigu waxaa laga yaabaa inaan qofka kool caadi wicin whatsapp ka waco dee haddii iyada layga xidho right baan waayey xuquuq baan waayey marka inaan gabadhana lagu furin wiilkuna uusan ku cararin caadi dadka loogu sheego la dhawr si caadi aynu wada isticmaalo su-aasheeda waxa weeyaa maadaama teknolojiyada dadka ganacsi ahaan ay u isticmaalaan inay lacag ka sameeyaan aqoonteeda ma leeyihiin aqoonteeda ay guso leeyihiin way yar tahay waa sababta keenaysa in hebel oo shalay reer hebel soo maagay in qofka maanta cusubna uu isna reer hebel u maagayo marka anigu waxaan isleeyahay dadku waxay u baahan yihiin waxa muhiima in talentiga lagu hal abuurka dadku ka fikiraan tusaale ahaan ninka abwaanka ah in uu gabayadiisa si xirfadaysan meesha ugu soo gudbiyo gabadha injineerada ah in ay injineernimadeeda iyo waxeeda meesha ku sharaxdo laakiinse sida hebelowba dad u soo maagay inaadan caawan adigu dad u maagin oo bartaa laga mis Soomaalidu xogaa way isku dayataa dhibaatooyinkan leenahay kamid marka in dadku ay ka fakaraan hal abuurka oo intii hebelowba baraankii sameeyay hebela reaction sameeyay hebela reer hebel soo maagay in la iska daayo oo la sameeyo talentiga marka waxyaabaha muhiim ah wax laga qaban karo waxa kamid ah in dadka hal abuur kale lagu dhiirigeliyo inay sameystaan hal abuurka lagu soo bandhigo hal abuurka lagu tartamo marka meeshii waxa imanaysa in wax fiican la helo marka waxay ku soo ururaysaa su'aasha jawaabteedu wacyigelintii iyo dadka akhlaaqiyadkoodii in la xoojiyo si dadku ay sida toosan ugu isticmaalaan social media oo markaas haday dhaqaale ka sameeyaan haday aqoon ka sameeyaan wax kasta waa lagu soo koobay maanta wax kasta qofna hadda ma oran karo salaada ma aqaan way halkan ay ku jirtaa waaba imtixaan marka qof kasta halkan ay ugu jirtaa hadda waxa xasuustaa maalin baa safarnay sanadkii hore dabeetana reer baan u tagnay marka reerku marka meesha naqo uu ka daay nugaashan ay ahayd xogaa bay u jireen meesha micnaheeda daaqa fiican leh indoor u jireen waxaan weydiinay maxaad daaqa uga soo fogaatay waxay dhaheen halkan waxa jooga internetka 3G-ga soo gaadhay marka miyigeennii baa saas looga xisaabtamaya 3G-ga halkan soo gaadho oo ariga waa tiig baan xoolaha ku gaarsiinana meesha laakiin halkan reerku waxa u dejinay indoorana dooxooyinka naqal u jireen marka halkan waxa u dejinay in 3G-ga iyo habeenkii aan wararka iyo internetka aan ku dhageysan marka dadkii waxaan u baahan yihiin right-na way u leeyihiin loo sheego in si wanaagsan ay u isticmaalaan oo dhaqankii Soomaaliyeed ee suubanaa iyo xishoodkii iyo diintii iyo wixii oo dhan la geeyo lana baro dadka in wax wanaagsan lagu soo geliyo dadka laftoodu aqligoodu siiro ma dadku way garanayaan waxa koorayaan kuwii dadka caay jiray iyo hebelow way ogyiin dadka laftoodu inay xun yihiin laakiin sadde wixii baa ka badan oo wixii baa caadi noqon aad ma u baahansan yahay wariye Maxamed Saalax banalkeena caawa waxa weeyaan su'aalahan intaas ay ku egyihiin waxaan u mahad celinayaa injineer Siyaad gudoomiyaha dalada dhalinyarada bayaan gudoomiye Liibaan iyo injineer Khadro iyo wariye Rawacda reer Puntland dhan aad u yaqaanaan iyo Soomaali oo dhan wariye Maxamed Saalax aad baa u mahadsantihiin